meesha maanta maxaa u timi waxaan u yimid inaan warqadii go home-ka ka goosto immigration sida awadeed aan wadankii iskaga noqdo Somaliland Hargeysa Somaliland dhalinyaradi Somaliland waxaan leeyahay waan soo socdaa waxba badaha ku dhamanina oo maxaa sababay markaa inaad ka laabato wadanka Switzerland oo wadan Europe ka mid ah waxaa sababay saaxiibo markii hore dheeriyadii aan ku riyoonayay maadaama gaari waayay oo waxa wadanka laga siiyay warqad rejectiya ama negative sida awadeed riyadii aan ku riyoonayay himiladii aan doonayay maadaama ay inoo suuro gal weeday inaan iskaga noqdo wadankana aad buu bixiyaa rejectiga wadamadan Europe toimada marka waxaad leedahay waxa la siiyay go'aankaygii aan macna codsigaygii magaliyo aan dalbaday ayaa waxa la diidma laga siiyay ka bacdi markaas waxaan go'aansan wadankii ka laabto inaan wadankayga ku noqdo haa reject waxay siiyeen diidmo qoxantimo maxaa dhalinyaro badan baa jiro diidmadaas kale la siiyay oo Europe meelo ka mid ah hadana u sii gudbay maxaad ku go'aansan inaad wadankaaga ugu laabato meelaha kale ugu sii gudbooyay waxaan uga noqonayaa in Europe doonayaa inaan uga noqdo sababta aan uga noqonayaa waxa weeye kuwii ugu horeeyay Europe bay wada taageen sax sida awadeed waxaan doonayaa inaan iskaga laabtay intuu Europe waqti ugu leeyahay kulba meel cayr ka qaadan lahaa kulba meel aan qoxantinimo isaga dhiibay aduu Europe kama timi waxaan soo galay in bishii afraad 2015 waana soo tahriibtay waana soo tahriibo dhibaato badan waan soo maray Libya soo maray Sudan baan soo maray badda Mediterranean kan soo maray halkaasaan Talyaaniga ka soo galay kharash badan oo ka soo baxay kharash tele waxa soo baxay waxay ka soo baxay 7500 baa ka soo baxay naftaadana aad halis badan u soo gelisay kaba dambaystina markii aad halka u soo socotay aad timina waxa kala kulmay go'aan diidma oo codsigaagii magalin doonimo ka bacdina hadda dib baad ugu laabanaysaa magaalada Hargeysa barkasama u xistay Hargeysaha aad iyo aad baan ugu xistay stress yaala waxaan stress ayuu yaala ma jiro laakiin usbuucii hore sidaan ku maqlayna Allah weyna raajicuun 450 qof oo dhalinyaro ah ku dhintay badda Masar iyo Talyaaniga u dhaxaysa waliba u badan reer Hargeysa marka maanay ka fikir dheerahay farqo imaan u dhaxan adigoo Europe inta timi maanta Hargeysa dib ugu laabanayo oo sida aan ognahayna muddo 4 cisho ah aan ku celcelinayo marba ka dhowniman anigoo diidan inaad aad ka soo fikirto jeclaa oo maanta ay noo tahay balantii labaad ee immigration nimaadno maanta aad waraaqahaaga ka qaadanaysay go home-ka dhalinyaradaas hadda iyo inta u soo xidhan maxaad kula talin lahayd waxaan kula horta waa kaafiye kala dheeri fikradda marka hore Europe laga aaminsan yahay marka wadankii la joogay iyo marka Europe la yimaado waxyaabaha badan ee ku arkaysatay waa kaafiye kala dheeri dadkaasina horta waa sideedii aan markii horeba ahaaday himiladeeda hadii doontii la tagayso kama joogsanayaan lahaa markii hore iminkaas laakiin waxyaabihii yaalay waan ogaaday aad iyo aadna waan uga xumay dadka ku dhintay badda iminka waxaan leeyahay dadka joogo iminka wadankii u soo xidhanaya Europe waxaan kula talin lahaa inaan dhammaan Soomaaliya joogo meel kasta ay joogaan Muqdisho Puntland Hargeysa dhalinyarada Soomaaliyeed joogta Jigjiga dhammaan ummadda Soomaaliyeed waxaad u sheegaysaa farintaada maxay dhammaan ummadda Soomaaliyeed ee iminka u soo xidhanaya inay Europe yimaadaan waxaan kula talinayaa inay iska joogaan wadankooda ay aaminaan iminka waraaqan gacanta ku sida maxay waxa weeyaan waraaqii noqoshada go home tusbal ma tuskartaa bulshada Soomaaliyeed si ay ugu qancaan inaad tahay nin wadankiisa ku soo laabanaya warqadaas waa tii go home-ka dhammaadana yaali marweyn dhammaan ummadda Soomaaliyeed waa taa warqadii dayib uu soo qaatay waad aragtaa in halka waxa ku yaala rug hilfa ku taala waa rug keer hilfe waa caawinta inuu qofku wadankiisa baka magaciisa saddexan waa kaas magaciisi dayib Maxamed Xasan 2 ka dhashay waa kaas maxaa kala seetaa waxaan sitaayo kale tii safaaradda aan la tagay travel documentiga okay dayib waxaan jecelahay marka bal insha Allah Hargeysa aad ku laabatana
inaad bal miidiyaha iyo saxaafadda aad la kulanto oo bal aad u faahfaahisada Yurub bal waxa yaala dee aan bal dhalinyarada waxa laga yaabaa inkastoo dhalinyaro badan aanay ku qanacsaneen oo ay taagan yihiin dee annaga cagahayga soo saareen oo xaqiiqada soo taabanayna laakiin insha Allah waxaan rajeynayaa balanay dhalinyaro badan markay muuqaalkaaga daawadaan ay ku qanci doonaan insha Allah adiga waxaan ku rajeynayaa safar khayr qaba Hargeysa family ku jooga xaas bay jooga hooyadii aabahay baa jooga hooyadii baa joogta carruurtaydii baa jooga saawadeed waan idin soo socdaa reer Hargeysa way ku faraxsan inaad soo laabato Soomaha aad baa loogu faraxsan ما شاء الله أنا قلنا إحنا كورة شيءنا نداون هذا النهاردي مقالة السجالة اللي بدنا إن إلهي نولد خير قبته إن ده الجسي فهم الحاجة الله بلوضه وأنا كوسة دعنا إن شاء الله ونوصل هذا الضغط ده إن شاء الله ونادي لسه حريرية أنا قلنا وحن آدي وتشعلها هنا كوش قد طبعا قف ودن كيسي هو يكل عبنا فرحل مويا فرحل الآن أركينين dhalinyarada Soomaaliyeed meel kasta joogtay daawanaysa dayib waa aniga Maxamed Cabdullaahi Cawada oo dayib soo raacay bartan si aan uga caawiyo ugu turjumo sidoo wadankiisa hooyo ugu laaban lahaa xafiiskan taagana xafiiska immigration-ka waxaan leeyahay assalaamu calaykum wa rahmatullaahi ta'ala wa barakaatuh